madaxweyne xasan sheekh oo ka carooday kulankii ra'iisul wasaare xamse cabdi barre iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe wasiir Farataag oo horay si toos ah ugu bareeray aflagaadeynta Axmed Madoobe oo xalay laga xirtay albaabka gurigii uu deganaa madaxweyne Axmed Madoobe ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa madaxweyne Shariif oo ciidamadii ugu badnaa isku hareereeyay sidoo kalena la tilmaamayo in Axmed Madoobe iyo Siciid Dani la sheegay in isaga uu difaacayo garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ee Muqdisho oo madaxda mucaaradka loo diiday in ay la galaan ciidamo badan laakiin taa bedelkeed loo ogolaaday min 10 askari oo la tilmaamay in qaarkood ay yihiin dharcad halka kuwa kalena ay yihiin kuwa hubeysan soo dhawaada saaxiibayaal wararkii ugu dambeeyay madaxweynaha Soomaaliya oo isagana la sheegayo in kulamo kale uu biloway ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo qaaday tallaabo lagu badbaadinayo dalka wararkii ugu dambeeyay halkan idinkugu soo gudbin doonaa haddii ay tahay markay kugu horeysay aad soo booqato waxaan ka codsanaynaa inaad nagu soo biirto saaxiibada la sii wadaagto muuqaalkan sidoo kalena meel dheer nala gaarsiisaan qaybta hoose ee faaladana aragtidiina nagula wadaagtaan mar kale soo dhawaada saaxiibayaal aynu ku bilowno saacadihii la soo dhaafay waxaa si weyn loo hadalhayay kulan dhexmaray ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kaas oo ka dhacay Airport Hotel oo kamid ah hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaa sidoo kale la tilmaamay oo waliba kulankan la tilmaamay in ay ku welinayeen ra'iisul wasaaraha xubno kamid ah golihiisa wasiirada sida wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya xoosh iyo sidoo kale wasiirka amniga gudaha Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Farataag oo labadoodaba ah laba shakhsi oo loogu bartay in ay si toos ah ugu bareeraan in ay wax ka sheegaan maamul goboleedyada mucaaradka ku ah dawladda dhexe ee Soomaaliya sida madaxda Jubbaland iyo sidoo kale Puntland haba ugu badnaatee madaxweynayaasha ama madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo tan iyo doorashadiisii 2024 ay soo ifbixeen hadallo markaasi u muuqday in lagu fogeynayo ama lagu kala fogeynayo dawladda dhexe iyo maamul goboleedkaasi Jubbaland ugu dambeynna waxaa la tilmaamay in khilaaf muddo soo jiitamayay kadib ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre caleemasaarkii madaxweyne Fardhiye uu ka sheegay laascaanood in madaxweyne uusan u aqoonsanayn Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland waa ra'iisul wasaarihii xukuumadda waxaase la sheegay hadalkaasi wixii ka dambeeyay kadib xukuumaddu ay ka aamustay ka hadalka arrimaha Jubbaland iyadoona ugu dambeyn mucaaradka Soomaaliya gaar ahaan madaxda Jubbaland iyo Puntland oo si weyn hadalhayntooda Soomaalidu iyo guud ahaanba caalamkaba imaanshahooda Muqdisho ay si weyn u hadalhayaan ayaa la tilmaamay in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu qaatay go'aan adag ee ah in uu la kulmo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe inkastoo kulankaas la tilmaamay in si hoose waxyaabaha looga hadlay aanan la ogeyn haddana ay ugu horeysay arrinta iscafinta iyo isasaamaxaadda maadaama labadan dhinac ay horay hadallo toos ah isugu weerareen warbaahinta bulshada ugu dambeyn waxaa la tilmaamay in kulanka la isku saamaxay laakiin ka hor kulanka waxaa la tilmaamay in ciidamo badan iyo xubno golaha wasiirada ka tirsan ra'iisul wasaaraha ay la socdeen ugu dambeynna markii la gaaray Airport Hotel oo ay ku sugan yihiin ciidamada madaxda Jubbaland iyo Puntland ay ku wargeliyeen ra'iisul wasaaruhu in isagu mooyay qof kale uusan gudaha u gali karin hotelka ama guriga uu degan yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ugu dambeyn waxaa la tilmaamay in la hor istaagay ilaaladii gaarka ahayd ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre sidoo kale isla wasiiradii oo uu kamid ahaa ay kamid ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya wasiirka amniga gudaha Soomaaliya labadoodana si weyn inta badan uga hadlayay arrinta Jubbaland waliba Farataag oo deegaan ahaan ka soo jeeda maamulka Jubbaland gaar ahaan gobolka Gedo ayaa isagu dhowr mar warbaahinta ka sheegay in Axmed uu yahay fallaago sidoo kalena loo soo diray ummadda Soomaaliyeed laakiin dawladda Soomaaliyeed aysan marnaba ka ogolaan doonin arrimahaas iyo idil oo warbaahinta bulshada uu ka sheegay wasiir Farataag xalay waa uu iloobay laakiin taa bedelkeed waxaa la soo xusuusiyay markii uu tagay albaabka Airport Hotel oo kamid ah meelaha ay degan yihiin madaxda Jubbaland iyo Puntland si gaar ah madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxaa loo diiday sidoo kale sawir qaadihii iyo muuqaal duubihii la socday ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre inay gudaha u galaan Airport Hotel si ay muuqaallo iyo sawirraba uga helaan kulanka labadan mas'uul ee madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe
iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. labada dhinac oo kulan gaar ah oo ku dhawaad la siiyey 20 daqiiqo la tilmaamay in labadooda kaliya uu dhaxmaray ugu dambeynna la isu saamaxay sida ila ka agdhow xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland markaasi uu xaqiijiyay. isla sidaas oo kale kulankan waxaa la tilmaamay in caro xoogan uu ka muujiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. waxaa la tilmaamay madaxweynuhu isaga oo ku sugan Addis Ababa kulamana ka wada halkaas in uu loo sheegay kaliya in ra-iisul wasaarihiisii uu la kulmay madaxweynihii maalmo ka hor ama bil ka hor uu ku tilmaamayay inuusan u aqoonsanayn madaxweyne. dhowr arrimood ayaa soo baxaya taasi oo ah in kulanka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland uu yimid xilli xasaasi ah, ra-iisul wasaarahana la sheegayo in dhowr go'aamood uu ku saleeyay la kulankiisa Axmed Madoobe. waxaa xogaha qaar ay sheegayaan in uu ku saleeyay badbaadada dalka. in muhiim ay tahay inay is arkaan madaxweynaha maamulkii uu ka soo jeeday ee Jubbaland ee laga soo doortay iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedkaasi oo isagana markaasi ugu dhiganta taariikh waliba buuga u geli doonta isaga oo maalmo ka hor warbaahinta ka sheegayay inuusan aqoonsanayn madaxweyne dhinaca Jubbaland. madaxweynaha xilligan talada dal waa wadan aan idhaaday maamulkaasi haya ee Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo arintan la sheegay inuu si xoogan uga carooday ayaan ilaa iyo hadda wax war ah ka soo saareen kulankan. isla sidaas oo kale xafiisyada Jubbaland iyo sidoo kale dhinaca ra-iisul wasaaruhu ma jiro wax war ah oo ay soo saareen oo ku aadan kulankan iyo waxyaabaha gaarka ah ee looga hadlay. waxa uu kulankan ku soo aadayaa xilli xaaladda siyaasadeed ee dalka ay aad u cakiran tahay dowladda Soomaaliya sidoo kalena go'aano adag weli aysan ka qaadan arinta la xiriirta shirka golaha mustaqbalka Soomaaliyeed iyo Villa Soomaaliya kaas oo dhexmaraya labadan dhinac looga hadlayo masiirka ummadda Soomaaliyeed oo ay ugu horeyso arrimaha doorashooyinka ee hubanta la'aanta ku jirta tan iyo sidoo kale markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dastuur uusan soo bilaabin oo kaliya 2 sano ka hor ama sanad ka hor uu soo bilaabay ayaana xilligan muddo ku siman bil gudaheed uu doonaya ama 2 bil gudahood uu doonaya inuu ku soo gabagabeeyo mucaaradka Soomaaliya. arintaas waxay u arkaan mid dalka khatar xoogan geli karta. madaxda Jubbaland iyo Puntland oo horay u hadashayna waxa ay sheegeen in maslaxadda wadanka ay ku jirto in doorasho la qabto madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud marka la gaaro 15 May sanadkan aynu ku guda jirnana muddo xiliidkiisa uu dhamaanayo wixii ka dambeeyana uu iyaga la mid noqonayo amaba xildhibaanada mucaaradka iyo kuwa muxaafadka ay waqtiyadu ka dhamaaday uu la mid noqonayo. isla sidaas oo kale madaxa qaarkood ayaa mandate buuxa haysta sida madaxweynayaasha dowlad goboleedyada qaarkood oo iyagu markaasi doorasho qabsaday halka kuwa kalena ilaa iyo hadda aysan wax mandate ah ama muddo xileed rasmi ah aysan ku joogin laakiin ay ku joogaan afka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. lama oga sida uu xal noqon doono xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaana cakirantay. ilaalayaashii gaarka ahaa ee madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ee la gelitaanka airportka ee gudaha magaalada Muqdisho ayaa la xadiday. isla sidaas oo kale madaxweyne Sheekh Shariifna waxaa la sheegay inuu noqday odayga dowladda iyo muxaafadka u dhaxeeya markii ay dhacaan waxyaabaha qaarkood ee halista gelin kara dowladnimada Soomaaliyeed. isaga ayaa markaasi la hoostegaya taliyihii nabad sugidda ee qaranka ayaa sidoo kale la sheegay in saacadihii la soo dhaafay uu la kulmay madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed. isla sidaas oo kale ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa uga horeeyay oo isagana kulan uga tagay dhinaca madaxweynihii hore ee dowladdii ku meel gaarka ahayd waa madaxweynihii 7aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. ugu dambeynna saaxiibayaal wixii ku soo kordha xaaladan guud ahaan barnaamijyadan wararkeena dambe ayaan idinkugu soo gudbi doonaa idinka ayaana noqon doona dadka ugu horeeya ee xogahaasi hela. haddii aad ilaa dhamaadka nala soo gaarteen waxaan ka codsanayaa inaad nagu soo biirto saaxiibada la sii wadaagto muuqaalkan meel dheer nala gaarsiisaan.